فرعون waxa uu xaakim ka ahaa dalka Masar ahdigii Nabiyullaahi Muusa calayhi salaam. Haddaba Fircawn ayaa wuxuu dadka ku qasbi jiray inay aaminaan inuu isagu Ilaah u yahay. Gabagabadii noloshii Fircawn, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu Nabiyullaahi Muusa u kala jeexay oo u baneeyay isaga iyo kooxdiisa badda. balse Fircawn ayaa markii uu badda soo galay si fool xun ugu dhintay badda dhexdeeda, iyadoo la sheego inuu jasadkiisa Ilaahay subxaanahu wa tacaala badbaadiyay si ay dadku ugu cibro qaataan. Tancredo Neves, madaxweynihii Brazil, waqtigii uu loolanka ugu jiray ololaha doorashooyinka dalka Brazil, ayaa waxa uu yidhi haddii uu xisbigaygu helo 500,000 oo cod, xataa Ilaahay igama hor istaagayo inaan madaxweyne noqdo. Waa uu helay 500,000 cod, balse guushiisii kadib dunida kuma sii raaxaysan. Waxa si kadis ugu soo booday xanuun, qalliino badan ayuu maray, si kasta waa la yidhi, balse waxba waa laga qaban waayay, halkiibuuna ku dhintay. Cazuza waxa uu ahaa abwaan, fannaan, kuna caan ahaa khaniisnimo. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa isaga iyo kooxdiisu waxa ay heeso ku qaadiyeen meel xaflad ah. Isagoo xafladii jooga ayaa waxa uu la soo baxay sigaarkii markii uu cabbay ayuu xagga sare ee hawada u afuufay, kadibna yidhi ilaahayow intaasi adiga ayaan ku hibeeyey iska qaado. wiilkii iyadoo da'diisu marayso 32 sano ayaa waxa uu u geeriyooday cudurka AIDS-ka, wuxuuna u dhintay qaab aad u foolxun. ninkii sameeyey markabkii weynaa ee Titanic, Thomas Andrews, nin wariye ah ayaa weydiiyey awoodda iyo ammaanka markabkaasi. waxa uu qaab lahjad adag ugu jawaabay, xataa Ilaahay ma awoodi karo inuu gadoonsiiyo amba burburiyo markabkaasi. waxaan filayaa inaad aad uga dharagsan tihiin qisada markabkaasi. qisada markabkaasi waa mid caan ah. waxa uu gadoomay galabnimo Arbaca ah 14 bishii Abriil 1922 isagoo u jeeda xagga New York dalka Mareykanka. haddaba markabkaasi ayaa waxa saarnaa dad gaadhaya 2,224 qof. waxa uu markabkaasi ku dhacay buur ku taalay badda gudaheeda. waxa ayna noqotay dhacdadaasi tii ugu cuslayd ee ka dhacda badda gudaheeda wakhtigaasi, iyadoo ay halkaasi ku naf waayeen dad gaadhaya 1,500 oo qof. Marilyn Monroe, iyadoo u diyaargaroobaysa xaflad ay qaban rabtay, ayaa waxa u yimid nin hawlwadeennada goobtaasi ka mid ah, wuxuuna si kaftana ugu yidhi Ilaahay ayaa ii kaa soo diray. kadibna waxay igu jawaabtay Ilaahay waxba ugama baahni, subxaanallaahi alkhaaliq. usbuucun kadib waxay ku geeriyootay gurigeeda. Bon Scott waxa uu ahaa fannaan, isagoo qaadaya hees ka mid ah heesihiisa 1969. isagoo heesaya ayaa waxa uu yidhi hay joojinin Ilaahayow, waxa aan doonayaa inaan galo meesha ugu hooseysa. waxa aan doonayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan naarta u galo. haddaba sannadu markay ahayd 1980 ayaa Bon waxa la helay isagoo meyd ah. Christine Howard waxa ay ahayd wariyad ka soo jeeda dalka Jamaica. waxa ay tiri Quraanka oo ka kooban hadalka Ilaahay waa kitaabka ugu xun abid. 2006 ayaa waxa la arkay iyadoo ku dhex gubatay gaadhigeeda. subxaanallaahi alkhaaliq. qisada caanka ah ee Kisra iyo Qaysar, Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa labadoodaba waxa uu u qoray waraaq fariin ah oo u sheegaysa inay diinta Islaamka qaataan. fariintii markii ay soo gaadhay ayaa labadiiba waxa ay diideen diinta Islaamka inay qaataan, balse Qaysar fariinta Nabiga sallallahu calayhi wasallam waa uu maamuusay, wax xadgudub ahna uma geysan. mulkigiisina Ilaahay wuxuu ka dhigay mid aan burburin. balse Kisra ayaa ku xadgudbay fariintii uu Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam uu soo diray, waa uuna jarjaray waraaqdii. intaasi waxa uu ku darsaday weliba in uu aflagaadeeyo Nabiyullaahi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. wax yar kadib Ilaahay wuu dilay, wuuna baabi'iyey guud ahaanba maamulkiisii. qoomkii reer Thamuud waa qoom uu Ilaahay u soo diray nebi saalix ah, isla markaana fariintiisu ay ahayd inay caabudaan Ilaahay oo keliya, kana dheeraadaan caabudidda ay caabudayaan sanamyada. waa ay rumeeyeen ay soo dhoweeyeen Nabiyullaahi Saalix calayhi salaam, balse wax yar kadib waa ay ku gacan saydheen, waxayna gowraceen hashii Ilaahay ugu soo diray inay aayad amba waano ay u noqoto. waxayna ugu hanjabeen Nabiyullaahi Saalix calayhi salaam in haddii uu wax tarayo uu keeno cadaab. wuxuuna Ilaahay subxaanahu wa tacaala Nabiyullaahi Saalix u sheegay inuu 3 maalmood ku soo dejin doono cadaab, una sheego dadkii isaga rumeeyey inay raacaan si ay uga badbaadaan ciqaabta xagga Alle ka soo socota. intii rumaysay waa ay raaceen, intii kale ku gacan saydhay ee beenisayna waa ay diideen inay raacaan. 3 maalmood kadib waxaa xagga sare ooga timtay qaylo iyo dhulkii oo la gariiray, taasi oo keentay inay guud ahaanba reer Thamuud baaba'aan. Ilaahow waxaan ka magan gallay cadhadaada. ilaahayow waxaanu ka magan gallay inaan ku dhimanno cadhadaada. ilaahayow hana dilin adigoona naga raalli ahayn.
gabagabadii iyo gunaanadkii baynu soo gaadhnay. aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiinna. fadlan ha moogaanina in aad sii sheer garaysaan ood la wadaagtaan asxaabtiinna idinku xidhan balaha bulshada sida Facebook, WhatsApp iyo wixii la mid ah. hana hilmaamina inaad subscribe saartaan channelka dadweynaha si aad ugu taxanaataan barnaamijyada ka baxa channelka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.